Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharada ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan wuxuu ku saabsan yahay sharing things ama wax wadaagista ama laba qof oo wax wadaagaysa. Gaar ahaan casharkan waxa uu taabanayaa laba qof oo wadaagaysa guri ama isla degaya hal guri. Marka fadlan haddii aadan subscribe dhihin Himolo Academy subscribe dheh, sidoo kale taabo calaamada gambaleelka si uu kugu soo dhaco casharkii ugu dambeeyay aan soo gelino. Sidoo kale kusoo biir Facebook page-keena facebook.com/Himolo Academy si aad u hesho waxyaabihii ugu dambeeyay oo aan halkaas aan kusoo share gareyno. Marka casharka waxaa dhahanay waa laba qaybood ama casharka waa uu dheer yahay, qaybtan koowaad, qaybtan labaad iyo qaybta saddexaad oo ah ereyadii ugu muhiimsanaa oo casharka ku jiray. Marka waxaan bilaabaynaa halkan. Hey, I am Sarah. Hey waxaa dhahanay waa mid ka mid ah salaamaha luqadda Ingiriisiga. I am Sarah. Aniga waxaa la dhahaa Sarah. Marka kule waa gabar magaceeda. My name is Yisha. It's nice to meet you. Way wanaagsan tahay inaan kula kulmo. Yes, it is nice to meet you as well. Sidoo kale way wanaagsan tahay inaan kula kulmo. Ereyga as well waa sidoo kale way wanaagsan tahay sidoo kale waxaa la mid ah marka nice to meet you too oo kalena way la mid tahay. Marka waa isku meeshii oo isku macno. Have you been here long? Imise ayaad halkan joogtaa? Imise ayaad halkan aad tahay? I got here about an hour ago. I got here halkan waxaan joogaa ama waxaan imid about an hour ago, wax ka yar ama halkaasna yiraahdo waa wax ku dhow hal saac ayaan joogaa halkan. Do you want me to show you around? Ma doonaysaa inaan ku tuso hareerahan ama agaarahan inaan ku tuso ma doonaysaa? Yeah, that would be great. Taas waxay noqon doontaa mid wanaagsan ama heer sare ah ama waxa loola jeedaa arrintaas way wanaagsan tahay. The most important waxa ugu wanaagsan is ayaa ah the bathroom, right? Waxa ugu wanaagsan ama waxa ugu wanaagsan waa bathroomka. Bathroomka waxa yiraahdaa qolka qabayska ama musqusha qabayska, qofba sidoo rabo. Miyaysan ahayn ayay leedahay marka definitely dhabtii ama xaqiiqdii ayaa loola jeedaa ereyga definitely yani wixii aad ku raacsan tahay ayaa loo isticmaalaa definitely iyo ama waxa loola jeedaa dhabtii taa waa sax inta baa la dhihi karaa but laakiin we have to share waa inaan wadaagnaa the bathroom with the wall floor. Waxay tiri marka waa inaan wadaagnaa dhammaan bathroomka inaan wadaagno ayay tahay. Ereyga floor waxa la yiraahdaa mutuleelka ayaa la yiraahdaa. Marka waxay leedahay marka hadda waxay ula jeedaa yani waxay ula jeedaa hadda waa inaan wadaagnaa musqusha oo dhan ayay ula jeedaa ama qolka qabayska. Musqusha lama yiraahdo afwan halka waxa loola jeedaa bathroom waxa la yiraahdaa musqusha qabayska ama waxa la yiraahdaa soo kale qolka qabayskana waa la yiraahdaa. Marka the break roomka ama qolka nasiinyada ama qolka nasashada is over there waa halka. The bathroom is right across from the break room. The break room kana wuxuu ka soo ereyga break room waxa dhahanay waa qolka nasiinyada is over there waa halka. The bathroom qolka qabayskana is right across from the break room wuxuu ka soo horjeeda ama waa albaabka ka soo horjeeda ama waa straight ereyga hadda waxa loola jeedaa the right cross waxa la mid ah the right street waa afaafka ama ka soo horjeedka ama horta ayaa loola jeedaa hadda marka waa ka soo horjeedka. Marka waxa la yiri bathroomka waxa uu ka soo horjeedaa break roomka ayuu ka soo horjeedaa. Finally ugu dambeynna ereyga finally ugu dambeyn the waxa loola jeedaa resident advisor qolka la taliyaha deegaanka ama ereyga resident advisor waxa la yiraahdaa qofka la taliya ama ka warhaya dadka guriga degan is ayaa ah
in the room waa qolka numberkiisa marka uu yahay 315 qolka uu yahay ayaa waxa uu degan yahay marka resident advisorka ama la taliyaha dadka degan guriga. I'm glad waan faraxsanahay there is a TV halka waa TV marka ama TV ayaa yaala halka in the break room qolka nasiinyada waxaa yaala TV. I like to watch waan jeclahay inaan daawado TV-ga waan jeclahay inaan daawado. Me too aniga sidoo kale. So sidaa daraadeed I brought one waxaan keenay hal ama mid ayaan keenay. I brought waxa la yiraahdaa waa keenis. Bring ay ka timid. I haven't unpacked it yet weli maanan baakada ka furin. Ereyga unpacked yet it or I haven't unpacked it yet weli iyada baakada maanan ka furin ama baakada maanan ka qaadin. Unpacked waxa la yiraahdaa wixii baakadaysan. But laakiin it is a little TV that works waa TV yar laakiin wuu shaqeynayaa ay leedahay marka ereyga unpacked waxa dhahday waa baakadaysan ama baakad aan laga furin. Cool waa arinta marka waa wanaagsan tahay. I brought waxaan keenay a refrigerator ayaan keenay. Ereyga refrigerator waxa la yiraahdaa marka waxa la yiraahdaa waa maaragtay frijer ama qaboojiye qofku sidoo rabo. Ereyga waa refrigerator ama dhawaqiisa ereygan waa qofka markuu waa inuu si toos ah ugu dhawaaqo dhawaqiisa uu adag yahay qofka markii uu luqada baranayo. Waxa la yiraahdaa marka refrigerator ayaa la yiraahdaa marka refrigerator waa frijerka marka. I like waxaan jeclahay to store inaan ku keediyo. Ereyga to store waxa la yiraahdaa ku keedin laakiin store kaliya markay tahay waa bakhaar marka laakiin hadda waxay ugu jirtaa to store in lagu keediyo some snacks in there. waxa uu leeyahay ereyga snacks waxa la yiraahdaa hadda waa cuntada macmacaanka ama cuntada fudud cuntooyinka ama cuntada culus kadib la cuno ayaa loo isticmaali karaa. Sidoo kale waxay noqon kartaa cuntooyinka qofka marka qaar iska cuno yaryar sida jukulaatada iyo wixii la mid ah. Feel free to use it waxa marka waxa uu leeyahay xur ayaad u tahay inaad isticmaasho refrigeratorka ama frijerka. That would be perfect taa waxay noqon doontaa mid wanaagsan. I think waxaan u maleynayaa we are going to have a great time. waxaan u maleynayaa waqti wanaagsan inaan qaadan doono. You're going waxaa lagu wadaa ayaan u maleynayaa inaan qaadan doono waqti wanaagsan ayuu leeyahay. Do you sleep pretty late xilli dambe miyaa seexataa? Or mas waxaa tahay are you a morning person qof xilli hore soo kaco oo xilli hore seexda. Morning person waxa la yiraahdaa qofka xilliga hore seexda isla xilli horena soo kaca subaxii hore. I have never been either labadoodba weligooda madna ma ihi ama madba ma noqonin. I'm very flexible with sleeping times waxaan ahay qof maaragtay markuu doono seexan kara. Ereyga flexible waa mar waliba mar kasta qof wuxuu rabo sameyn kara ama waqti haya ama wixii u fudud. Marka waxa uu leeyahay waxaan u ahay hurdada waqtigeeda markii aan doono ayaan seexan karaa. Anyways si kastaba ha noqotee I'm a deep sleeper waxaan ahay qof hurdo weyn ayaan ahay ama qof hurdo dheer. A deep sleeper waxa la yiraahdaa qofka hurdada jecel ayaa la yiraahdaa. Marka soo sidaa darteed a little noise never bothers me. Marka waxa uu leeyahay waxaan ahay qof hurdada dheeraysta ama hurdada dheer ama hurdada jecel. sidaa darteeda dhawaq yar ama qaylo yar waxba igama dhabayso. That's a good to know taasi wanaagsan tahay in la ogaado. I'm usually aniga had iyo jeer a night person waxaan ahay qof dhafra ayaan ahay. Ereyga a night person hadda waxaa loola jeedaa qofka dhafra ee habeenkii soo jeeda ayaa loola jeedaa. But laakiin I'm very quiet if my roommate is sleeping. Laakiin waan aamusanahay oo dhawaqiga ugu hooseeya ama ma sameeyo ayaa loola jeedaa hadda waxyaabo buuq ah
ereyga quiet waa aamusnaan ay ugu jirta hadda. Wuxuu leeyahay laakiin inta badan waan aamusanahay ama ma hadli if haddii my roommate qofka ila wadaaga qolka ama deegaanka ila wadaaga is sleeping uu hurdayo. As long as you don't blast the music while I'm sleeping, I should be fine. Wuxuu leeyahay marka as long as ilaa iyo inta adiga aadan muusiga dhawaqiisa aadan ka shidaynin, you don't blast. Waxa loola jeeda ereyga blast waa qarxin, laakiin hadda wuxuu u jirtaa dhawaqa xooggan ee muusigada ayaa loola jeeda marka wuxuu leeyahay ilaa iyo inta adiga aad muusigada habeenkii hadiiba adiga aadan xoojinin, khaasatan wuxuu leeyahay waqti aniga aan hurdayo waxaa noqon doonaa mid iska wanaagsan. Did you eat a lunch yet? Cuntadii ma cuntay marka qadada ahayd ma cuntay? No, maya. Is there a cafeteria in the building? Dhismahaasi ma waxaa ku yaala cafeteria? Yeah, I will show you. Waan ku tusi doonaa. Marka halkaana waa ereyadii ugu muhiimsanaa. Ereyga show waxaa dhahnay waa tusid, around waa hareeraha agaaraha, bathroom waxaa dhahnay waa musqusha qabayska, important waxaa dhahnay muhiim, refrigerator waxaa dhahnay waa asigana waa qaboojiyaha, snacks waxaa dhahnay waa maamacaanka ama cuntooyinka fudud, noise waxaa dhahnay waa qaylo ama buuq, blast waxaa dhahnay waa dhawaqa dheer ama qaraxa ama wixii lamid ah marka casharkii halkaas ayuu ku kooban yahay ama uu ku eg yahay. intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.